Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maanta waxaa review garan doonaa insha Allah taleefanka iPhone 11 Pro. Kusoo dhawow walaal channelkeena. Taleefanka iPhone 11 Pro wuxuu xooga saarayaa kaamirada, qaasatan wuxuu leeyahay 3 angal oo kaamira ah oo xooga ay saarayso hardware-ka oo si fiican loo hagaajiyay kaamirooyinka. wuxuuna leeyahay 3 faction oo 3 qayb kala ah, telephoto oo 1 ah iyo wide oo 2 ah iyo ultra wide oo 3 ah. sidaad u wada jeedaanba waa wide, ultra wide iyo telephoto sawirada laga wada qaaday intaas. waxay aad iyo aad u horumariyeen night mode-ka oo hadaytaan low light-ka aad wax fiican ugu sawirayo. videoga uu duubayana waxaa waaye 4K oo aad iyo aad quality-giisa u heer sareyso, aad iyo aad inay u casriyeeyeen hadaytaan xataa filimaan qaar lagu duubi karaba. Apple Air 13 Bionic chip waa chipka ugu yar ilaa hadda Apple ay soo saartay, wuxuuna aad ugu fiican yahay battery performance-ga, wuxuuna hayn doonaa batteriga 5 saac ilaa 4 saac marka loo eego iPhone XS iyo iPhone Max. wuxuuna ku imaan doonaa madow, cadaan, dahabi iyo cagaar intaba. tijaabooyin badan lagu sameeyay ayuu ku guuleystay 11 Pro, tusaale ahaan dhulku dhicista, u dulqaadashada busta iyo biyo ku shubidaba intaba wuxuu ku soo baxay perfect iPhone 11 Pro.